برنامجي سوغانتا يدقنكا أما دقنكا يسوغانتا أو أينو كجا هذي جري هذا يجر وح سوغانتنا يدقنكا نسلس كساميان خصوصية وقتنا ندي دقن والله وحباس إذا وحس إذا نحوين وأف كان وحس إذا يسجل فانتيزا وسوانتيزا طبيعيسا معنا يسكر فانتيزا وحين عنكاس وقال شكل كستون صوتاتنا وإني سوانتنا قيب كقالتها تاسوقا برنامجيدا إني هربا سين نوسو ودني حتى ما أنتنا بل أينو دقالك سوانتا أينو لا هي سوانتا إني سدوم جرى يدها عن دحكا ويدقى فانتيزا waxa la yidhi kolkii ugu horeysay bani aadan kolkii jannada aadan laga soo saaray ayaa ilaahay dadka wuxuu ku xukumayba oo la yidhi kolka aad dhulka u dhigtaan sida aayadda quraanka inoo sheegayso yani barkiiba barka kale ha u ahaado cadow ha u ahaado oo waxaynu ognahay in bani aadanku ilaa kolka laga soo qaado haabiil iyo qaabiil sida sheekooyinka diintu inoo soo gaarsiiyeen in la isku foognaawn haddaba taasi waxaynu ka sawaabinaa xayawaanka badha oo waxaad arkaysaa ugaadh istilaysa waxaad arkaysaa libaaxyo isku foogan waxaad arkaysaa bahalaha hoose iyo kuwa kale sida sooqurka iyo maska oo kale inay isku foogan kolkaa waxa weeye dhinacaas waxa weeyaan waa dabeecad noolaha wixii abuurkoogu yahayba dagaalka ha isku noolaadaan ha is cunaan waxa kala diidlaan waxaasoo dhammi waxa weeye wax naflaha oo dhan baa ka dhexeeya xitaa kuwa inaan arkay ee maaragtay microka iyo waxaasoo dhammi cudurrada waxa keenaya waxa weeyaan waa iyaga oo wax cunaya oo wax dilaya bal haddaba inagu sidaasi ayaabaynu naflaha ama uunka intiisa kaleba aan ula qaybsanaa dagaalka oo dee bani aadankaa kale ayaynu ka midnahay taariikhda bani aadankana inteeda waa dagaaladaas aynu haddaba bal inaga sugaanteena iyo afkeenaba siday u saameeyeen dagaalka iyo wixii la xidhiidhaa aan maantana ka wareysano ismaaciil xamuud dugsiye iyo cumar good buux oo aynu in badan halkan ka aragnay aan ku bilaabe cumar dagaalka ereyo badan baynu leenahay oo ereygan ugu horreeya dagaal de waxaan umaleeyaa malaa wuxuu ka yimid istagis oo waxa weeyaan ninkii dee aad la doonaysa inaad dishado waa inaad tagtaa kolkaa ereygu xaggaas ka yimid bay aniga ila tahay lakin waxaa jira ereyo badan oo macneeya dagaal oo بالمثل weerar guluf colaad waxankaasi maxaad ku ayaga inooga sheegi waxa weeyaan waxa jira adduunyadu nin damcaya nin diidaya un bay ahayd jiiraashu nin damcaya iyo nin diidaya kolka dalbeersi dalka ay beersanayaan amaase nin laga bari waayo oo la iska celinayo oo la iska caabiyo dib looga iska caabiyo sida nabadda ay inta nabadda ku wada taalana wuxuu dagaal ka bilaabmi jiray oo la isku heli jiray gabadh iyo geel buu ka kici jiray dagaalka meel geel lagu qaaday iyo meel gabadh lagaga ooriyay hubkaba waxaa la odhan jiray gabadh iyo geel baa loo sitaa marka dagaalkuna kulba heer buu joogay waxaa horeysay adduunyada bilowgeedii hore in horta falaad lagu dagaalami jiray intaynaan u tegin taa waxa weeyaan ereyaa laga mahmaahi jiro waxaan kuugu socdaa waxa weeyaan ninku kolku heelada dhalinyarta kolkay ciyaarayso waxa lagu mahmaahi jiray gabdhu waxay ku rogi jireen ninka heelada ciyaaray wuxuu oran jiray alaawo raguna kaa ceesayn bilaa waxa doon laga celinay ninkii ka cabsaday maceeb baa haday inantu filanimo inanka ku cay adu ha haatay waxa weeyaan waxaan doonaynaa horta bal ereyada dagaalka xuseeya sida guluf oo kale weerar oo kale waxa magacyadaasaan doonayaa kolka waxa la oran jiray guluf iyo gaas kolka lagu leeyahay gulufku waa nin farda wato in jeeraho xoolaa in yar unbu qaadaa oo qoora marka gaas haddii lagu yidhaha waa buto meeshay degto habeena barida weeyaan waxa harag wareen baa soo raaca oo meesha aad colaada tihiin adigoo habeen guday oo reerkii aad ku horeysay un wax ka dilo oo kolkaad wax dishana dib uga soo laamo marka guluf haddii lagu yidhaaho faras buu wadan jiray guunyada wixii uu qaaday hamba ma lahayn oo wax farda kale oo ka daba dheereeyo oo la gaarsiiyay maana lug laguma gaaro waxa uu guluf ku qaado kolka waxa fardaha waxa ugu dheereeyo kolka la haystay waxa kolka ugu dheereeyo la haystay kolka hadaa halka su'aal kale ka yar weydiyo waxa weeye faraska maxaa la saara kolka uu lagu dagaalamayo ma baaba jirta in kol la liqaa koora faras looga digay la yiraahdo in kol la liqo ya koora faras looga digay inay dhibaato tahay ninka dhaadhiciisa
أما سسو نقط كي سينا دبعته كنت واحد قوة عضينا يسافر كفرس ككوري سكوجوي نعم إن كل اللي قاع كورة فرس لو قد جوا حلو قوليه وهن تاقب بيقول نقطة وش يقولوا اللي قيوية حكمات بيره فرس كلاجو هاي كنا في الجليل أفكر اللي جريو فرس اللي قاع عريسيات جري كل اللي شوف كل وجه ده لو دقاجيات مركا كورها أنت وصل هاي ساي مريا جراسن وصلا مشدد دقن كده وكلا يا وصل هاي ساي يا لقى الرئيس يا دكتور حوالات كتل ما أنت قلتها وحنا مرينا يا قلبك إتسميني سكران ما يميل لقى سمين جرين أنا ما قراني فيلمي يقوم سمين سنجرين يميل ده قولون أماش لقى سمين أنا ما عبينا لا مقالة لقيين جرين مقالة لقيين وكأني يقولون كيين وارتمها شرو قاسم بالله راه مرها فرس وقاس وسعوني يو هذا جلسنا كاركون أنت ما جلسنا تما بس لو أركو تما واحد يقولون شرو قاس بكيرين إنن مركا كورها أبو الهانجري مركا لا دفول نويجري يسون كهادو فرس ولين هاي يسوق كورو كم قاية وكذا قال لهم يجروا لا دفول بالله كلها أنت بالفرس روي نوصل نقدنا يجرا هذه فردها لحجيري إسماعيل أدو فائرية محاد كوكردين waxaan ku kordhinaa waa wax hore inoogu simeel dhigay oo dagaalka iyo nabadda qorshahooga iyo sida u kala baxaan iyo magacdooda iyo waxay ka dhacaanba rag hore inoo sii dhamaystir sidaa aad ma imanka sheegtay waxaan dagaalamin taariikhda waxaan anu ku hayaa shay kaliya shaygaas waxa weeye shayga la yiraahdo sagaarta waxa la yiri odayadu mahmaada ku dareen waxaanan marti sooyaadkeed iyo meedhashahayn markaati halahaado inay sagaaradu dagaalamina waxa ka markaatiya odayadu markay dacaysanayaan bay oran jireen ilaahu dhaqankeenu dhaqan sagaaru ahay dhaqan daayira ka dhig mid kalena waxa daayirku dagaal badiyay oo dhaqan foorxiya si kastaba xagga dagaalka iyo xagga garqaadinta sida bilaadanku isku garqaado ugu dhaqan foorxiya sagaaraduna waa ugu dhaqan fiicanta wayna ugu nabadgelyo fiicanta ma dagaalanto waxaana garanaysaa maamaad tiraahday waa hirdi sagaar kolkan la leeyahay hirdi sagaar laguma dhintaa lagu tusaya dagaalada adiga weydiisayna eriyadan ku weydiiyay yani eriyada gulufka Umar inoo sheegay eriya la xiriiro dagaal hadii aad xasuusantahay waan xasuusanahay dagaalka gabigiisada wuxuu kala ka laba qaybood qaybi taariikhda inooma galayso qaybina taariikhda galaysa hadda la sida qaybta taariikhda galayni waxay ka dhacaysa iyo magacyadeediba waan kuugu soo lawaana kuu sheeg ka horeysa weeyaane magacdooda waxay yiraahdaan guluf waa kolku faras wato الهوبيس الدبلية وكل كدوم بقى كودريرة الورنلية وكل كورانك يا جاشانك يا جدبنت يا ورف كودريرة إن كل كأول كيري أنا واحد لا يراسلي أم بقى توي الرجال رجاله أتوقع تيان ده أنا صوب بابا أم بصح هذا أنا دونيا كل كا بيعلم إنه أما قوية واحد كده يجرين بدك عن دين كوكا الدوانين بدنا من كوكا الدوانين دل عن كوكا الدوانين سيدي عادينا عساكتي وحبا كسر بالعمل وكليه ده أمدي دتك ودل النبي آدم لا بويس دشي أنت كنا ولا عليها أنت هاي رأس كمارك هاي ودي أم بدوشي أم بحسود دشي أم بحصاب وقت ما هنا أنت كنا سك لو أرك جرين ويكت شيء جرين هذا طيب تشجع يوم نبتدي دي بقى موضوعنا وحوي قرب هذا قرب وحكوا حديث كده بالبنية واحد ناس يعني اسمه قاشان بكجري قاشان بكجري وحوي صدق لا مهمة ورك يا قاشانك iyo galxadka kolka waranka iyo gaashaanka galxadka magacooga la sheegay mardaha la isku yiraahdo kolka gaashaanka is loo sheegayana mayalka la yiraahdo kolka waranka is loo sheegayana waxa la yiraahdo magliga kolka galxadka is loo sheegayana waxa la yiraahdo madaha kolka gaashaanka waxa ugu adag baa leeyahay waxa laga sameeyay asalkiisa wiisha bahasha la yiraahdo iyo biceedka inta badan biceedka laga sameeyaa waxana ugu adag gaashaanka wiisha sidaan taariikhda ku hayn waati laatiina kaga ugu dacaysa kaaga sheegtay waati rahay hooyo waana gaadayna waxaan ku geyn lahaa meesha geerida gaashaan wiile laga huwad inuu ugu adag yahay sabayna tusa dhiman laakiin inuu adag yahay inoo sheeg inuu adag yahay ina kana ajashabay yaa inoo sheeg kunta waxa jira kolka dagaalka loo baxayo badan waa tii aanu nili waxa kamid ah gulufka faraska kamid ah noocyada dagaalka ee xoolaha soo qaadaya kolka Umar waxa jira ninkii aad maxay nin adii sheegisay oo
oran jiray markaa kolkii faraskii kolkii nabadii la xidhay waxa jaagadiido waxa jiray de shagu talaw isku diriri jiray talana uu ka heshin jiray kolkii de nabad la xidhay nabadii la isku gacan qaaday iyo faras buu lahaa oo marka hore oran jiray hay cabsiyo wadaado hanoo sheega cadaabta caynaba labadeena socol bay noo dawada ku ka oran sida barnaamijka gaar ku soo qaadnaa markii de dhalaartii nabadda la xidhay soo jooji faras oo neefkani uu iyo alaalaasiya qayl ku arsaaqad lahaa haddii se loo ururayo nabad loo andisheebay hadeed ibsamiyaaye iyo ku geeraare bay jaagadiin marka tirirtu kolba heeray gaadhaba sidaaba u jiraysa waxna ka heshiiyo unbayna unbay ahaan nabad way u jiri jirtay marka waxaa jira 3 shay ayuu ragga kolkii hore muhiim u ahaa sida uu Ismaaciil bay noo sheegay gaashaanka iyo waranka iyo golxadka wuxuu yidhi ninkii la ciyaaray geel walaalka ma hamsaday ma ku hamiyay oo maqashii meel ma ku hubsaday shagu dirirta ma hamsado ma ku hamiyay oo golxadkii meel ma la hubsaday kolka dirirtu kolba heeray soo gaadhaba kolku gaashaanka marka ku dhamaan uu waranka iska darbataa ama sameeloolka lagaaga jibi golxadka muhiim ah kolkaas sameeloolku waxa weeye kolka labadii nin iska hortagay labada waran kolka iska horgeeyaan iyo ninka sameeloolka ku baasay halka qamadka dabadiisa waranka kaga dhifanaya birtiisiyo xaqi afka lahaayo samada uu duulaya oo jabaya warankii kolka waxa isku soo haraya gaashaankii waa la soo dhaafo dhagax baa la iskala yimid labadii waranna mid baa jabay waxa la isku yimid qolxadkii marka qolxadku wuxuu ahaa geele wuxuu midiidina waxaan u min qaabana kuruska u min maraqa u min qaab maraqa u midiidina oo kuruska u min qaabana buu yiri nin la ciyaaray oo godolka midada tahay ragana wuxuu midiidina waranka u midiidina oo gaashaanka u min qaabana oo qolxadka midada tahay ma gudadu waxay ahaan jirtay qolxadkii isku dhameeyay qol beher la gaaraba maanta waxa la joogaa tilmaanta la joogay yada wali kama sheekaynayne taariikhdii hore sidaa bay ahayd kolka waxa weeye isagana waxa jiray leebta yaqaansana way jirayeen oo fallaadh waa la isku dili jiray oo waxa ku tusaysa in fallaadh lagu dili jiray gabooyo maran tuhunkiisa dhaama gabooyo waa ka fallaadh lagu gurto nigu hadduu qaansadii iyo gabooyihii fallaadhu ku jiraysa sito tuhunkiisa dhaama yacni fallaadhu inagu dili fallaadhana waa kii ninkii dee ayiri alla kaa duwaad leedahay alla kaa badbaadsha malihin oo sun bay lahayd kule dhiiggaaga gaadho wad khalaas bay ahayd oo way kuu dhammaan jirtay marka hubkii hore lagu soo diriray waraf baa ka mid ahaayo colka waraf ma lagu dee mahmaah bay ahayd ol malaha 7 dagaal lagu waday la jabi waayo iyuu niiraa la yidhi colka waraf ma lagu dee gurma dambe ku yimid mayaa la yidhi dee habeen farinoo golilo kolkii qurcud dhulkii noqdo unba 4 taawo bar waraf lagala joogsado dee ma soo xiimo mug ma yidhaah sida rasaasta dhagax samada kaaga soo dhacaya unbuu noqdo cirkiga dhulka wax laga laayay colkii uu garan waayaan wuxuu ahaa waxa ugu muhiimsan uguna khatarsan buu warafku ahaa waa kan maanta rasaastu ku jiray halka rasaastu ku jirta buu ku jiray marka daan hadda ku sheegayeen waxa la isku dilayay fidmada oo dhandhalayayna sidii habil iyo qaabiliinta isku dilayay damac iyo dumar iyo geel wax la sidaa un bay ahayd iyo waxa ugu muhiimsanaa qood dhaqan aan isku mid ahayn oo isku diin ahayn ninka dalka kagala dagaalamaya baa kamid ah dad baa badan loogu yimid imikana badada sare yahay guriyihii ay degayeen waxa yaala kii xaruurka lagu samaysanayay iyo halkii beerta laga qodayaba intii aad ka fahmaysaa inuu dhul beeraley ay oo beeraley hataa waxaynu ka tagay kolkan Ismaaciil iyo maalinkii aala booro la oran jiray iyo ayay niman doonaa kolka waxaan ku kordhinay anu fiiras xagga fallaadhu dagaalka qabiil baxday ka qaadan jirtay waxa ku cadeynaya inay dagaalada iyo hubka lagu dagaal galay inay kamid ahay oo hubkii dadkii hore soo maray kamid ahay fallaadha ninka liba ma sameeyo ninka gaashaanka sameeyay ee waranka sameeyay golxadka sameeyay baa iyana sameynay ninka fiyaamiga ninka farsamo yaqaanka dadkiina kamid aha waxa kale oo ku cadeynaysa ninka taariikhda xagga xeerarka iyo xagga dadka maartay nabadgelyadooda qaybta leeyahay ka soo qaatay xasan gadiis la oranay geeliisa mar la qaaday waxa lagu riday fallaadh inama yaryar oo gabraarata oo aydoobo agooma iyo riday oo 7 halkii ay ku rideen waa meel ay qorantoo dhulkeena kamid ah goboladeena kamid kabal qabad baa la yiraahdaa ma garatay marka kale
علك عيد وين لا شكل بكوجو دري دون عيد وين لا يدا قالك عيد وين لا يدا هدتك كل لحدة ريدك جلية إن كارتي برال الوين وكذا شيء وضيق كم معها نك برال الوين وضيق هاي وصي أنا لما فلان اللي أسيله يا خبر ترى خبر كيس بقى كنا أي كم معها يا كان عيد وين ها نك كان فلان بلغوك إيه وحكي والله نبدأ كلام مرودي والله سوق بساعد مقشين waxaa lagu muday mooramaha keenay waa falaad dadna waran buu haystaa waa nin falaad ku muday nin gol xad ku diray kalkaawayaan falaadi baa ku dhacday kolkaas dadkii kalena halkaas meel daba ku dhintay falaad baa ku dhacday ninka Muuse damac la oran jiray baa isagoo fulaya falaad ku tuuray isagoo uga jeeda inuu qurmo oo kolku geli ugu joogo foolka kala baxo oo de foolka kala baxo ninka la oran jiray diida ha waxba yeena ku sii dhacay waxa de falaadaba yahay falaadaas waxa sabab u jiri halka waxa weey bal qalabkii hadaynu inta badan inta ka soo qaadnay oo macad gudbintii aan soo sheegnay falaadi waxa jira waqti dad nimankan gaalaha wayra waxaan leeyahay oramada wayra way muslimiin oo qotrina laakiin bari waxa jiray ay xageena ku soo duuleen oo dagaal ay ku soo qaadeen waqti qarnigii 16aad kolka waxa la yiri wadankii dawladda muslimka ee awdal ay ka dhisnay harada caasimada oo hay dhulkii ay deganeed oo dhan caawsta ilaa balbalow dhaxeeyay ayaa bacagta mariyeen kolkii dambe de waxa ka soo baxay nimankii ka haray waxa kamid ah aalbuure baynu in badan dhowr jeer soo qaadnay kolka dagaalada ayaga maxad ka xusanta waxaan ka xusana horeba waa kaan uga sheekayn nimanku waa sidaas sheegayso meelaha xeebaha isku balaariyeen kolka boqorro badan bayna hayno nin degmo xakumo aalbuure ninka lagu leeyahay wuxuu ahaa boqorka boqorradooda waxaana la dagaalamay ninkii cali kala geeyay la oran jiray ee geesiga ahaa waqtigii uu isagu u shaqodaynimada siday ragaabana ku guuleystay ninkaas xukunkiisu la gaaray caanaha xoolaha dadka inay ayna dhamin oo isaga loo keeno waxa kale oo ku xigay ninkii kaloomba la oran jiray ninkaas oo isagana xukunkiisu gaaray ayaan kastoo sabtay inaan iyo loo geeyo awr baarqaba ninka waxa ku guuleystay oo dilay de hal wada dilo alka la wada gale oo magac lahaa ninka la oran jiray hilingeedi okay islaantu ducaynaysa rahay ha ninkaasoo ereerigii uu dadka galiyay naaguhu ay yiraahdeen dhalmadaba joojinayaan ma kaloon baan u dhalay waati inatii de hilingeedi uu ducaynaysa ugu soo alqabtay naagihii dhalmada daayay naagihii ribi jiray wiila raamalaysitaan kaloonbana naga diliyo kidima noo baneen ilaahu hilingeedi oo helma ku baneen naagaha ribi jiray naagii kolkay dhashay iska daayeen naaxay almaana waxa kale oo kamid ahaa dagaalka jalaqa la yiraahdo gaal iyo islaan gaadhay gaalka aad iyo aad isna loogu haaqmay ninka Ismaaciil buu xalaal la oran jiray ku dhintay yiri anu ishii Allahu akbar isku daray maayo dagaalka ayo sayla uu ka qaaday ninkaasi rag uu kamid ahaa oo meel imanka dadka taariikhda haya oo sheekada la socdaan kulku gaarsiiyay oo ku xijaabtay waxa kamid ahaa dagaalka kale aan ku sheegay la oran jiray eeyda weyne xilligii dhaxeer ku dhisnaa dadku meel ku wada tashan jiray oo shaqo odaynimada ee dadka aabanimadiisa kulbanin baa sidii jiray ninkaas ul xarar loo balaaran ajirsa laga qoro oo odaya u qoran u dhiibay oo dadka inuu u dhadhaxad uu nin baxigin loogu dhiibay iyo wuxuu sidii jiray 6 shay ee xeerka lagu metelay ninka bulaale ilweyna la yiraahdo xilliga aabaha oo baa loo yeedho leeyahay waa ku asila u sheegay kolka buu maxad igu ansishay ninka la eebayna aylo ma way waa ilweyntaal ma ilweyna baad igu ansishay saab kala adiga sheeno ilweynina ku ansilale ilweynida anu waan la socon carabkayga Allah haye ayda weyna ay badili buu ayda weyna odayga uu iska socday buraal ilweyn oo reerkiisi waa ka gasha saaway xaq dhaca u jeeda waa ka iska digay dad waxay raacina halka kula dhacda waa meelaha olalka lagaga gabad jixdi lagu asilin ayda weyna dig kolku 4 sano dalmada laga hoogay ee dhagari badatay waqti qundula la kala galu dadkii baadi iyo buraal ilweyna lagu noqday la dhimay kacda leeyay buraal ilweyna kolka dib u soo kacay warafka waa ka bilaabay iyo tani ma ka sheekaysan inay falaada ninka inuu odax la oran jiray awowgi iyo shan inaanu dhalay iyo falaad ku galay habeena waa la galay roobda ay halka bulaala ilweyni iyo dadkii aabaha u noqday aabanimadii kala ka qaaday kala ku soo ceshay ku jabiyeen gaalka eedweyn waxa kale oo ku xigay gaalawida oo soo laba kaclaysan xolka kamid ahaa la yiri ishuurin
كل كاس سوى واحد يقول أنبأ يراهن علومة واحد يراهن تذكر على قبتين بسجال أفوها كل كاس إذا كنت المامان جري علومة يسويله سوى بيسيه أما واحد يسيين دي علومة هاسو ملاجئ كذا كل كان ما كان كان مربع كان عدته عرير أقلين أبص النقطة والله لا دجال لم يقول اللي جقولي هذا دجال كأهل بوري يو واحد يوحنا مغلي واحد كا يلا سمعت بقى شيء عيارهم والولاء فقالوا لي هذا صوت والله عيار ندم والولاء وحوي وعيار دجال kolka ereyada maxaa kamid ah Umar ma ereyada dagaalka ku saabsan ama say reebi kala walwalow kolku rab ciyaarayo kolku walwalaha goynaya waqtiga u dambayso codka joojinaya cagta laga goyn doono wiilaa sida reebi kala ama shabeedan reedama oo yimid ama sheeraha iyagoo degay taasi waxay walwalaha ayuunba iyaduna la nooc tahay marka waxa weeye waxa uu ay iskaga yimaadaan waxa weeye sacab lama tumo ciyaaraha waxa weeye waxa laga ciyaaraa waa lugaha soo sama walwalaha lugaha un baa laga ciyaaraa sacab laguma daro kolka waxa iyana kamid ah ciyaarta kale oo ay zayliciinta ciyaari jireen oo la yiraahdo hyper ciyaaraha dagaalada shabahaya waxa kamid ah sidaad garanaysa walwalaha tirtirfaha waxa bilaabmay warwareeyoydaasi waxa bilaabmay oo dadkuna laba nooc u kala sheegan anigu san aan aaminsanahay ay tahay xilligii ninka aala booran oranay la jabiyay rida weeye la yiraahdo loo soo xiro lagu dilay baa ku sheekaya taasi ma ahina kolkii la jabiyay iyo rag soo tirtirfaday guushi ku soo tirtirfaday warwareeyay warmaheena laga waasho rida weeye waa iska ridna yaani gumaysiga xuna al macnuhu hela yar layra iyo inaagu kala hortageen waa dhalashahay waa dhuuxe ima kaba la ciyaar
soo dhaweyn bay taasina ahayd waxa kaloo shabahaya dagaalka dhuumaysiga oo isla wada garanay waqti lagu sii baranayay hore uga sheekaynay waxa maaragtay samayloolka kamid kolka dagaalada ciyaaraha shabahayay sida adba u garanayso sacad baan la qaybtay yaana ku jirin mid kale gucustu dagaalkay ku jirta odaydu waa ku yiri gucustu waa dagaalan hubleys ku qaad iyada qudheeda wax lagu sii diyaar garoobayay muruqa iyo qofka in la dhiso tabaha iyo si uu adkaysigiisa loo adkeeyo salbigiisa u weyn dagaalka ciyaarta tilmaamaysina waa welwelihi iyo tirtirfa sida nidhiha waxa sidaynu sheegnay kolka iyagana de ciyaarahan kale tan hay baraayeen soo sheegnay iyo hela yar yar taadu afka ku dhufatay iyo waxa soo dhan waxa weeye waa ciyaaraha xilliga barwaaqay iyo waxa isku dhex jiraan xilliga maartay dagaal iyo kala qaartin barwaaqada waxa weeyaan kuwan saac waa saacad hay barayda iyo lama dhuufeedana de anigu waa saad garanayso af oramaha ma qaaneen nimanka macneeyaan wilwilaha bay la tilmaameen la habdhac la jaantahay la dagaalada barankaaga tagay hadaan kuugu beeriye la iskaga hor yimiday nimankii maaragtay daafaca xagga daafaca midda ka tagaa jiro xagga daafaca way soo gali doonaa kolka waxa weeyaan inkasta oo aynu nidhi bani aadamku de xayawaanka wuxuu kala mid yahay xaggan ma garanaysaa dagaalka aynu kala mid hadda had iyo jeer caqligaa tirin jiray waxa weeye diimahoo dhan waxay ku salaysan yihiin waxa weeye nabadgelyo bani aadamka dhexdiisa kolka waxaan maqlay in islaamku uu dagaalo badan soo galay waxaa ka mid ahaa dagaalkii bedel waxaa kamid ahaa kii ku xigay uxud waxaa ku xigay kii ka dambeeyay khandaq bohosha lagu soo wareejiyay madiina waxaa ka dambeeyey kii kale ee maka lagu qabsaday intaasoo dagaal haddii aad eegto gaaladu waxay dhahdaan badana nimanka islaamka wax ka qoraa islaamka waxa lagu hirgeliyay dhahdaan seef caarade waxa weeye had iyo jeer islaamku waxay samayn jireen nabadgelya ku horreyn jireen waxa weeye waqtigaas afartaa dagaaleen kuusoo sheegayba taariikhdooda haddaad dib ugu fiirsato inta waxay dhahaan istifaa ayuun baa gardarra laga gardaraa kolka waxa weeye dagaal aan lagaa gardarayn haddaad gasho dee waxa weeyaan dagaal inta badan aad ku jabayso waxa aynu leenahay maahmaaha badan oo taa ku salaysan oo ah dagaal ha ku degdegin ku haya asalkoogaba dagaalka iyo nabadgelyada waxaa ka sii sheekaystay siina qorsheeyey nimanka xeer bay dhiga ad maqashay xeerka oo xeerku sida odayna uu sheegay waa 101 in xeerkii koobaad xeerkii 40 sano laga soo fiirsanayay marka xeerkaasi qodob kasta oo kamid ah qodobka uu yar uu kala baxay 12 macna xagga nabadgelyo xagga 12 macna uu kala baxay dagaalka kuugu socdaa balka kowda mooyaane 10 ku nabadgelyo ishaaraya kowduna waxa ishaaraysaa kaliya in la isdaafo in la isku duulo dabada iyo daaqanka midna ma ogolo kolka inayna sidaa tahayna waxa kaaga maraga maahmaahinka adala caagane u yiri birir ha ku degdegina tusokeeyana ha ku darina ha duulina digtoonaana ogaada fidnaha kicinina foojinaana ogaada waxayna ka maarmayna ha ka maagina kolka noqoto de sida aan garanayna kolka de lagu yimaado ee daafaciga aad kolku dhaxdooda sii dardaarmayna waa kiilaha waxaan danayna ku daalina waxa soo noqonaya isku weyn isbariga oo haysboobina xoola kala sheegta oo xoog haysku sheeganina arinta ku dooda oo ku kala dudina dambe haduu dhacdo firaada ka reeba gobasha lagu wada hurdana hayskaga xaarina gobasha lagu wada hurdi waa nabada haddayna nabadu jirin nibba burcidu doona ma seexdo sida inaguba aan aqli u leena haddayse nabadu xumaato aqal dhagaxoo bandarada haddaad isku xidho gaarna dusha iskaga wareejiso aqalkaa kuu qaaqaayiro inaba waan garanayna taariikhdeena tusay ka cumar iyada taa maxmed ku tari waqtigana aynu soo waqtigu inagu kooban yahay waxa weeyaan waxaan danahaynba waa lagu madaalaan ragga hore wuxuu ka hadlayba waxa yidhi ninkii heelada ciyaarayay kolkuu hadal soo waday buu yidhi dab la shiday damdam u belal dumar duuday dagaal maqaloo geel dida digtoona rag buu naa hadalla daanya ku idlaa halkaa bu isagu hadalka ka baxay kolkaa wixii laga daanyoodaba kolkuu dhammaaday waa laga hadhi jiray marka nabaduna rag unbaa kolka dambe ay xumaatan unbaa xidhi jiray habase noqotee waxaa jiray dad isku diin ah damcana oo isku qaada baa jiri jiray kolka iyagu ma fiirsan jirin xagga rabbigay iyo xagga baalagaara ma fiirsan jirin haddana kolka dambe nabad unbay ku dambeyn jireen iyaga wax kala galeenoo iyagoo hirimaad ah
iyay jirtay inay kala guursan jireen oo nin baa yidhi hebelow martii way qadan maganina way dhimatay maganse weli ma qadini gabadhiisii buu ka yidhi yani guurkii lagama quusan laakiin kii dhexa ma isagu ma lumin buu yidhi guurkii weli ma kama bixin labadii kale way tegeen inkastoo ay xumaadeen kolkaa ragga hore sidaa buu ahaa waxaase murtidu ay tahay innaga oo maanta in kooban ka soo qaadayna waqtiguna uu inagu gaaban yahay sheekooyinku dib bay u badan yihiin ee tilmaamaha dagaalka kuwa maxay ahayd hablaha heelada rogay iyo inamada ka ciyaaray yaa heer walba ka soo gaaray waa kaan cisho dhaweyd ka sheekaysanaynay inagoon halkan fadhiino waxa weeyaan ragga waxay muddadii tahay waxaana u midiidina waxaana u minqaabana uu ninku lahaa kolkuu dagaalka galayo yacni inuu golxadku hanti yahay oo u dambeeyo wixii baanse imika de horta iska dhigno golxadkii lanoogumaba imanaya wixii sidaa loo tilmaamayay imika sheekada way dhammaatay taariikh waliba ay halkaabay ku idlaatay dawladiyo waxbaa yimid oo ninkii awal isagu istaafici jiray dee dawladiyo waxbaa iyo nabadgelyadiisa ilaaliya kolkaa waxaa jiray mahmaa kaloo odhanaysaa dagaal ninkii lahaa dagaal nabad baan ka aaminay kaasi waxa weeyaan dagaalka qudhiisu wuxuu yidhi waxbixin waxaan ka aaminay waa kii waxbixin baan ka aaminay baqana dirir baan ka aaminay beenna run baan ka aaminay qudhiisu dagaalka baqanka dirir baan ka aaminay dagaalka uu leeyahay ku uduunaya maahayna dee maamadiisa hore inoo cadaynaysa inuu isdaafacay uu leeyahay dagaal nabad baan ka dagaal nabad baan ka aaminay waxbixin waa kii waxbixin baan ka aamin baqana dirir baan ka aaminay beenna run baan ka aaminay taasuu cabdalla caagan buu ahaa kolkaa kaa una uu ka aaminay baqaha uu ka aaminay waa isdaafac wey kolkaa waxa weeye dhinac walba kolka la eego waxa weeyaan dagaalkuna waxa uu ahaa yani waxaa isaan dirita tabaayacaan la ma garanaysaa had iyo jeer aan la wadaagno bani aadamka intiisa kale nabaduna yani waxa weyn caqliga bani aadamka qudhiisu shaqeeyay oo waxa weyn laba libax nabad isku yimaado nabad aynu yeelo garan maayaan laakiin bani aadamku intuu isku yimaado yiraahdaa inuu bal nabad inuu balaayad iska reebno oo wixii la isku dagaalamayay la isku dilay aan ka hadlo hal laga gaaro nabad inkastoo ma garanaysaa sheekadu ay dheer tahay bal barnaamijkeeni waxaan kusoo koobaynaa haddii la yidhaahdo maantana heestaa laga sameeyey iyadana walwalaha oo uu cabdinuur inuu qaadayo warka dunidiyo wayisaan weerayayoon wabinaya warka dunidiyo wayisaan weerayayoon wabinaya wanaagkii jiray waya soo wareego loo wanqalaya wanaagkii jiray waya soo wareego loo wanqalaya wada wakaba waxay isbaansan sida wawiin badhaadhan daba wada